daawadayaal waxaan ku sugannahay xalfadii lagu guddoonsiinayo shirkadaha waaweyn hadiyadahooda haddana waxaan rabnaa inaan sii guda galno daawadayaal wixii soo korana haddana la daawada mudanay marwooyin haddana waxaan guda galaynaa xalfadeeni daawadayaal anaga waxaan rabnaa inaan mahad celino injineerada kulli meeshaan fadhiyo wax qabadkoodana waxaan rabnaa dadka inaan tusino haddana waxaan u yeeraynaa guddiyaashooda sidoo xalfadan kaalintiisa ugu qaato dhinaca horumarka dhismada maanta abaalmarinta waxa qaadanaya master finuur soo dhawow mahad celinteeda maanta waxay ku sii jeedaa maruf sundara sanadka ugu qatarsan waxa qaadanaya abaalmarinteed shariina oo ka soo jeedo shirkadda Fusandara mahad celinteedu waxay ku sii jeedaa Fusandara sidoo kale mahad celinteedu waxay u jeedaa Fusandara anigana waxaan u mahad celinayaa Fusandara haddana nashqada ugu fiican oo dhismaha waxa qaadan doona qof kalena ma aha waa marwo Fusandara mehesh waan idin salaam mudanayaal iyo marwooyin aniga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay tiimkaygu waan ku faraxsanahay oo biladaha qaatay weliba isla galabtaaniiti midaasna lama filaan iguma aha maxaa yeelay aniga shaqaale aad u fiican ayaan shaqo siistaa mooye shaqaale aan ku kalsoonay shaqo ma siisto hambali marwo hambali ugu dambeyntii injineerka ugu wanaagsan ee sanadka bilada waxa qaadanaya master Ragu Waram oo ka soo jeeda shirkadda Anita master Ragu Waram bilada waxa uu godoomayso qof kamid ah shirkadda Anita hambali marwo mudanayaal marweyn aad iyo aad u mahadsantiin sida wacna xafladan uga soo qayb gasheen aniga bilada maanta waxaan u gudoomayaa injineerkeena asaga injineero kaliya ma ahan ee waa qof qalbiyadeena ku weyn maxaa yeelay waa qof daacad oo shaqadiisa daacad waa asaga si kasta aan ugu qasabnin oo meesha dhimaado biladiisa gudoomo waa uu diiday aniga ayuu ii soo xil saartay ma aqaan sababtuu ku diiday si kastay ahaataba hadda aniga ayaa u gudoomay waa mahadsantiin dhammaantiin yaa way ninkaas shirkaddan ayaa iska leh marwo shirkadda waa shirkadda Anita ee wax dhista wiilkaas sanadka hore wuxuu diyaariyay project aad u fiican oo xaafadda dadka danyarta ah dhalinyaro ilaa ay kun gaarayaan ayay page waxay ku samaysteen Facebook projectigan ayaga ayaa si fiican u soo diyaariyay oo ku dadaalay marwo aad u aqli badan yahay asaga dhalinyaro badan inuu aruursaday ayuu projectigan qiimo jaban ku sameeyay dhalinyaradana waxay u arkaan nin horumar gaarsiinaya ayaga aniga hadalkan mar hore maxay u sheegay waa cunug yar anigana uma arkin inay muhiim ku tahay midaas horumar in la gaaro waxay ku xiran tahay shaqo adag in la qabto asaga ciduu doona ha ahaado waxaan rabaa aniga in la ii keeno waayahay marwo asaga magaciisa laakiin Ragu Waram suuq luuqaan uu ku yaalaa maxaa la soo daadayna maalin kasta waxaan ku dhahaa baawur qaado mooto bishkuleetidan oo kharaabtaa maalin walba ku baxaysaa
maalin kasta anuu igu dhibayaa hooyadii soo dhimatay yaab ayuu leeyahay maxaaba kalkan adiga aan soo xiratay binku dumashi maxaaba binka shigas war socod iska soo bedelan kula soconta ku jeedo war maxay ka fiirna socod iska soo bedel alisiiq lagu bilaawna asbaxna subaxnimo nagu soo asbaxayna maxaa sameynaysaana aan dawladda mar hore cabada ka fiican weeyano yaa kan uu qabo mid kale ku soo sameynaya okay maxaa quslaysaa wax ma fahantaa hadda xaway subaxnimo marka dadka la daba dhigto warka bad iga day socos ayay waa iska baxay bilada anitaaya u soo qaaday aabahoo ka feegaada ma satahay bilada markii lagu doonsiinaa waad adiga ma sameynin ukaadi ya khala jeclowga in lagu qalqaliyo ma jecla bas ab jilinka min subax oo defensive ay loo shak ma si baxay kala adiga tayga xataa sida loo xirtay ma yaqaan fiirir baadiyaha say ugu qeylinaysan kula nafta igu dhibtay tan 3 mar ayaan wacay ilaa haddana iima keenooyin markaa soo laabanaysid hore iigu soo qaadno kala ninkaaga ma u dirsatid wiilkayga adi shaqo walba lagu diro si wanaagsan ayaa u qabataa dadka si loo sabta foorta ku taadiga markan iskaabulada ah guriga ka shaqeyn jiray markan guursadana dariska ma u shaqeynaa raguha iloobi ninka tubada inaad wacdo shaalani kana u baxay hooyo saata gabadhaydii waan fiicanahay hooyo adiga sidee tahay waan fiicana sidoo yahay wuu fiican yahay maxaa soo wacaatooda laakiin laba gobol kala joog amal isku waraysan guri macunta miya adiga waa caatooda gabadhaydii wax iska bedel yaa qawalaan saa tahay waan fiicana okay jeerka sanadka imaaday jeer seeta yaa wayimid ama sabdin ana hooshadana qabsaday anaga aad ayaan kuugu faanaa runahaantay ma isaas dhin marwo way fiicnaaleed shalay inaad meeshan imaato weliba aad adiga koobka qaado maya aniga koob haddaan qaadayo aabbahaaga ayaa istaagay maro waa og tahay ninkan inas xishood badan yahay teeda kale mootadiisa did soo qaada lahay intaan ku imahaas dhihi lahay doorashada kalaaba la gaari lahay mootadeeda waxaa ka sheegin mudan martaas moota ma aana baaskiil oo mudan kaale socjar toortadan jar roobsi hadal ayaan rabaa inaan adiga aan ku dhaho inay xanaaqdin looma baahno mudan maxaa waaye waxaan iduduugasi shirkadda fasadana ay dhahaan shirkadda soomaa indii lambar 1 ka gashay waa runtaa waxay rabaan inay adiga fadhi kula yeeshtaan aniga laakiin sabab ma aqaan aniga laakiin wax lee jiro injineernimada sanadkan adiga ayaa ku guulaysatay waxaa macquula mashruucooda inay qayb kaa siiyaan mudan aniga in muddo waxaan iska sii rabaa shirkaddan inaan kasii shaqeeyo kabacdina kooxdeed VIP in aan kambani cusub u taago waa runtaa waana ogahay shirkaddan ogow shirkad weyn inay tahay adigana waxaad rabtaa inaad shirkad aas-aasatid shirkaddan waxaa fursad ay kuu siinaysaa inaad horumar aad samaysid aniga waan kula talinayaa fursad noocaana inaad iska beerdaraysid maaha hadda iska soo fiiri mashruucan hadduu ku anfaco ka faa'iidaysa ayaan ku dhihi lahaa mudan maya meeshaan ku fiicanahay aniga muxuma hadalkaaga adiga hal mar u tag soo fiir haddii ku anfacayso waryaa joogso yaa rabtay yaa oo maante marwo ma fasundaraa u imaaday ayadaa ii wactano adiga noocana fiiri ood u sheeg raguu kuu imaaday dheh raguu hadda ka sileed waa yaabi leedan ku dheh shirkadda dhismuhu ka socdaa dhuu sheeg se u yaalla fiiri kuwa jaamacadda safka hore fadhin jiroo dhan meeshaan isugu wada imadeen dhexdaa la soo wada xirta ka waran waan kaa qaaday magacayga waa raguu shirkadda anita ayaan ka socdaa fasundara ayaan u baahnahay wax yar fadhiiso